madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta gaadhay magaalo xuduudeedka Ceelwaaq. Madaxweynaha waxaa soo dhaweeyay wasiirro xildhibaano iyo sidoo kale maamulka degmada Ceelwaaq. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam muddo dheer kadib waa markii koowaad uu booqanayo meel ka mid ah gobolka Gado. Madaxweynaha ujeedada guud maanta u tagay Ceelwaaq ayaa daaranayd inuu soo indho-indheeyo doorashada ka socota degmada Ceelwaaq. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa goobjoog ka ah hal kursi oo maanta lagu doortay Ceelwaaq, iyadoo wadarta guud ee maanta la doortay ay noqonayaan 17 kursi. dhanka kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo meel fagaaraha kula hadlay bulshada reer Ceelwaaq ayaa u sheegay in degmada Ceelwaaq laga hirgelin doono garoon ay ka hadaan dayuuraduhu, sidoo kale inay noqon doonto magaalo koonsal ah iyadu markaa ismaamusha. dhanka kale guddi isku sheegay inay yihiin kuwa doorashooyinka Garbaharey ayaa maanta shaaciyay jadwalna u sameeyay inay qaban doonaan doorasho 9 kursi oo ka mid ah golaha shacabka, taasoo ka mid ah 16 kursi ee maanta laga bilaabay magaalada Ceelwaaq. sidoo kale madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta wareegto uu soo saaray ku sheegay inay doorashooyinka isgarab socda ay yihiin kuwo qalad ah, kuwaas oo baalmarsan 17 Sebtembar heshiiskii lagu gaadhay magaalada Muqdisho. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hardan dheer uu kala dhaxeeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam muddo dheer ayaad moodaa maanta in lagaga guuleystay kuraasta lagu qabanayo Ceelwaaq. dhanka kale guddiga doorashooyinka FID ayaa u diray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha ku-meel gaadhka guddiga doorashooyinka FID Muuse Geelle, halkaasoo goobjoog ka ahaa habka ay doorashadu u socotay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo dheer hardan ugu jiray inaysan kuraastu ka qabsanin meel aan ahayn Garbaharey ayaa maanta moodaa in lagaga guuleystay loolankii siyaasadeed ee muddada dheer ugu soo jiray. dhanka kale Villa Soomaaliya oo warbixinta ay maanta soo saartay ku shaacisay inay baalmarsan tahay doorashooyinka dadban ee Soomaaliya loo idmaday habka ay wax uga socdaan magaalada Ceelwaaq ayaa lagu sheegay in 17 Sebtembar ay ku shaaciyeen qaabka doorashooyinka loo qabanayo inay tahay Garbaharey in loo asteeyay, balse guddiga doorashooyinka ee FID iyo sidoo kale kuwa Jubbaland oo iskaashanaya ayaa dhawaan ka wareejiyay magaalada Garbaharey ee ahayd deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka gilgishay habka ay wax uga socdaan Ceelwaaq ayaa maanta warbixin dheer ku sheegay in 17 Sebtembar gebi ahaanba ay baalmarsan tahay habka ay u socdaan doorashooyinku. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa yidhi qof lagu soo doortay nidaamkii 17 Sebtembar iyo qof baalmarsan ma noqonayaan kuwo isku xuquuq ah, kuwaasoo u tartama guddoonka doorashooyinka iyo midda madaxweynaha. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo dheer ishayeen hogaamiyaha Jubbaland ayaa maanta warqad dheer uu ka soo saaray xafiiskiisa ku dhaleeceeyay habka ay wax uga socdaan Ceelwaaq. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la xusuusta halgankii dheeraa uu soo galay Jubbaland inay noqoto mid laba noqota ayaa maanta Gado lagaga guuleystay isagoo 16 kursi ee taalay magaalada Garbaharey loo wareejiyay magaalada Ceelwaaq. sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta u ahayd dhoolatus iyo guul uu ka gaadhay inuu isagu doorashada ku qabto halkii uu rabay. sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraalkiisa sii watay ayaa sheegay inay madasha wada tashigu fadhiistaan xalna u raadiyeen 16 kursi ee Ceelwaaq lagu qabanayo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa yidhi ma noqon doonto mid markaas la ansixiyo ama noqoto doorasho guuleysata, sababtoo ah waxay gebi ahaanba baalmarsan tahay heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ay ku gaadheen madasha wada tashiga magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo